بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ونكسن كسر دوادا ورئيس جارة أو مانتا ومرتين نووية هاي مدن سيد أحمد عرب وأفيانكي هوري وسارد أرمها جودها جمهورية فدرالك الصومالية sidoo kale waa xubin aad muhiim u ah oo kamid ahaa asaasayaashii dawlad goboleedka Jubbaland sidoo kalena xilal kala duwan aan filayay in uu iyada lafteeda ka soo qabtay Said Arab waa ku faraxsanahay kulankaaga ku soo dhaweys TV waa maasantahay Nuur aad aan kaaga mahad celinaya jarama way aad u maasantahay mar kale waxaan jeclahay in bal waxoogaa aan ka sheekaysano arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo waaqica xilligan uu jiro inkastoo dhinaca amniga aan bal wax ka taaban doono inta badan si guud dad bal noo ifisa maadaama wadani siyaasiya oo muddooyinkii ugu dambeeyayna siyaasadda Soomaalida aad uga dhex muuqday xilliyo amniga ka shaqeynayay iyo xilliyo maaragtay uu halgan ugu jiray in Jubbaland la dhisaba ahayd bal sawir kooban naga si Soomaaliya iyo marxaladda maanta ay ku jirto بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد نورو Soomaalida xukuumada waa bariyay sac muggiis lagu maqariyo dalka Soomaaliya maanta meesha uu marayo nin walba uu ogyahay Soomaaliya meel adaga laga keenay ilaa dawladii carto dawladii u dambeysay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo hadda madaxweynihii hore Farmaajo uu joogo dalka meel fiican uu joogay 2016 ama 17 bilowgeedii marka madaxweynihii hore Farmaajo lagu wareejinayay laakiin maanta wuxuu marayaa in qabyaaladii ay soo laabato cunfiga qabiilka ahaa oo Soomaaliya hadda ka baaba'ay oo soo laabto dictatoriyadii ama kaliistalnimadii ay soo laabato in dalka dadka lagu duulo siyaasiyiinta ahaa in dadka la dilo in wax badan oo Soomaaliya hadda ka baabaaday muddo 4 sano ka hor in had dib ay u soo laabatay marka dalkan Allah badbaadiyo wuxuu ku sii hadda muuqdaa jirarka hadda socdo oo aaminsan wax badan ay ka soo bixi doonin haddii beesha caalamka iyo dadka wax garadka ah aqoon-yahanada siyaasiyiinta culimada diinka hadda dalka ay badbaadinin dalka wuxuu u sii socdaa meel mugdi ah Ilaahayna ka badbaadin karo hadda dadka jooga maamulka gacanta ku haayo meel qatar ah ayuu had dalka uu marayaa ay marinayaan u maleeyeen in ninka ayaga taageerin qofka ayaga fikirkooda qabin qofka ayaga ka dhadhacsaneen ra'yigooda qaldan in la aflagaadeeyo baraha bulshada cayaan badan loo suubiyay lacagaha lagu bixiyo dawlad goboleedyada lagu duulo lagu burburiyo iyo baraha bulshada loo adeegsado wax la xisaabi kara ma aha inta hadda ay joogeen nimanka hadda ka dhamaatay waqtiga ka dhamaaday jacarada joogeen hal isbitaal hataa ama hal iskool ay hagaajiyeen ma jirto intay ku jireen dalka ay haayeen duulaan dawladda lagu duulo qof muwaadin Soomaaliyeed la dhiibo ma aragtay wax badan ay dalka ay qaribaad ay u keeneen laakiin waxaan rajeynayaa ummadda Soomaaliyeed in mar dambe in cusub oo wadaniga ah dadka ku akhriyo qiyaaliga ah inay dhamaatay la iska dhaadhiciyo shacabka Soomaaliyeed qof iyo cod aan gaarsiinaa shacabka anagana noo codeyn doonaan waxaan aaminsanahay hadda inay barnaamijka uu sii socon doonin waa u jeedaa habeen hore u dambeysay waxa dhamaanay dhalinyaro waaye qoyahana ah wax bartay wixii dalka hadda soo kacay ah waa dareemi kartaa intuu hadda joogo madaxweynihii hore Farmaajo qaraxa ka dhacay Muqdisho iyo dhibka ka dhacayo waa dareemi kartaa hatta hay'adihii amniga la leenayo oo shabaab aad u maasantahay waa u iman doonaa bal arrimaha amniga iyo maaragtay qaraxyada iyo waxyaabaha la xiriira kelmad aan kala dhaxbaxay baan su'aalka weydiinay hadalkaaga hadda waxaad tiri madaxweyne wadani baan ahay dambe ku sira dadka madaxweyne walba ama musharax walba aan idhaahdo oo isu soo taaga kursiga ugu sareeya dalka Soomaaliya waxa uu ka sheekayaa wax qurux badan ama wadaniyad ha noqoto ama wax qabad uu la iman doono ha noqoto wax qurux badan buu sheegaa dabcan waana muwaadin xaq markaas u leeyahay in la doorto maxaa lagu kala saari karaa ama lagu dooran karaa baad isleedahay hogaamiye fiican oo wadanka iyo maaragtay dadkiisa anfaca waxa lagu kala dooranaa dadka taariikhda dalka ku lahaa in la soo celiyo nin dambo cusub
oo dibad ka imaaday oo dalka meeshuu ka imaaday aan fahansanayn shacabka Soomaaliyeed iyo dadka matali doono xildhibaanada cusub ay imaan doono inay dooran doonin dawladaha dariska qaarkood la weeraro hadalla adag lagula hadlo shacabkii ku noolaa dawladaha dariska hataa loo turin ma aaminsani wadani ahay dambe marka nin la soo tijaabiyay dalkan xil ka soo qabtay halgan ballaaran ka soo qabtay dawladnimada maanta taalo oo ninka hadda imaan doono 4 sano wuxuu madaxweynaha hore Farmaajo u haleeyay uu hagaajin doono Axmedow hadiiba ay tahay nin maaragtay la soo tijaabiyay hal la keeno Farmaajo soo lama soo tijaabinin in loo daayo maadaama ku cusub laga cararayo iyaysan garahayn Farmaajo wax inuu wax ma dhisin wax uu haleeyay dalku burburiyay dawladuhu ku duulay maamul goboleedyada oo dastuurka federaalka ku meel gaarka oo qoraayo wali si qabiil ugu duulay ma aha si dawladnimo ugu duulay ma aha marka wuxuu ka hadlay madaxweynihii hore hada ogaan lahayd meel zero ka hadlaya marka waxaan leenahay ummadan Ilaahay oo maqan laakiin waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed dalka u turaan hana fiiriyaan maanta dalka meeshuu marayo waxa jiro cudurkan dilaaga ah abaaro baahi dadka shacabka ay haysto waa dareemi kartaa shacabka qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo nimankii burcadineedka maartay ay ku suubiyaan marka shacabka Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa mar dambe wadaniga ah iyo wax badan aan qabanaya iyo qof iyo cod aan geenaya laguma siri doono aad u mahadsantahay hadda uu dhamaaday madaxweynaha madaxweynuhu muddo bil ka hora iyo waliba maalmo ka hor buu dhamaaday sidaan la soconno bil iyo maalmo haddana filada waa ku sii jira arrimihii doorashooyinka la isku hayaa oo la isku diidan yahay tendada Fiziyoni baa maalmihii ugu dambeeyay kulamo ka socdeen bal marka aad fiiriso xogaal aad ka tahay waxyaabaha dhacaya arrimahan doorashooyinka ee la isku diidan yahay maxay tahay sartu meesha ay ka qurunsantahay waa xagee ma dawladda shisheeye ayaa diidan in heshiis meeshan lagu gaaro mise madaxda Soomaaliyeed iyaga isdiidan haday si isdiidan yihiin khaladku xagee ka jira noo tilmaami kartaa walaalo ma santahay waxaan ku sheegayaa ninaan rabo shaati asaga la eegno tasho xildhibaano soo xusho deegaano qaarkood ku duulay Soomaalidana muddada 20 sano u dambeysay wax ku maamuleysay ama wax ku qaybsanaysay 4.5 tusaalo Somaliland waa qabiilo ka soo jeedo Somaliland madaxweyne Farmaajo wuxuu arki laayahay ninka la dhaco Cabdi Xaanshi senatarka ama gudoomiyaha aqalka sare oo si dastuuriyan ku imaaday matalaad reerna ku imaaday Farmaajo wuxuu hadda ku fadhiyay kursiga matalaad reer ee daarooda ku fadhiyay Cabdi Xaanshi wuxuu ku fadhiyaa dirta waqooyi ugu fadhiyay marka hadduu dhaho Cabdi Xaanshi ma arki kari adigana kuma arki kariya noqoni taas waa qodobka labaad waxay tahay madaxweynaha xilkiisa dhamaaday gobolka Gado oo deegaan ahaan asaga ka soo jeedo ayuu rabaa reerkiisa inuu asaga maamulo ay ka soo baxaan xildhibaano asaga taageersan beeshiisa ah wuxuu hadda ka gooysan arkayno Jubbaland marka shalay Jubbaland wuxuu ugu soo duulay oo mar saarayay nin waxa haysiin ama teamkiina ku jiro Jubbaland مسؤولينتي كاميدا دمبيلة ما أنت نينكيو كحي دمبيلة ما هنو يري مركا Soomaalida way arkaysaa madaxweynaha hore Farmaajo nooc qabyaalad oo ku dhaqmaayo oo marada u saareenin oo isqarinaynin waa ninka maanta garbahaarey bis inuu ka hadla rabo Muqdisho inuu fadhiyo rabo reere ay degan yihiin oo reere ay leeyihiin marka waxaan dhihi lahaa madaxweynihii hore Farmaajo dalkan muu rabo dawladnimo wuxuu rabaa inuu 20 sano kursigan ku fadhiyo 20 sano dawlad ka awood badan ka xoog badan ciidamo ka haysay dictatorad ah ayaa maamuli weysay oo wiil kaarabiina ay haystaan Muqdisho ka cirsatay marka waxaan leeyahay sirmin dadka qabiilada qaarkoodna dakanaha galinin way waxyaabaha marka loo heshiin leeyahay ma arinta gadi iyo wax la xiriira waa arkaysa waa arinta gado iyo arintii waqooyi
ama Somaliland oo Cabdi Xaashi oo doorkiisa in laay Cabdi Xaashina waxa isku maageen waxay doortay dastuurka ilaali ima ilaalinay marka dalka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaa mar dambeeyaan lagu sirin muwaadin ah iyo dastuurka ilaalinay wadaniga ah iyo waan jilbeysana iyo shacabka Soomaaliyeed soo doortay iyo idinkaan matalnaa iyo shacabka Soomaaliyeed muxuu raali ka yahay in qof muwaadin Soomaali ah madaxtooyada villa Soomaaliya laga dhiibo وماي ما أقوله قف أقولنا ما جرت واي هذا ما صنطاي ضدك قار waxay ku doodayaan ama ay sheegayaan dhaleeshinta ugu badan ay saarayaan labada madaxweyne Jubbaland iyo Puntland oo la leeyahay iyaga laga heshiin la yahay dantii ummadda Soomaaliyeedna ku jeefa arintaasi ma ku muuqataa adiga waa ma santahay niyahow Jubbaland inta uu farmaajo ku duulay wax la xisaabi kara ma wuxuu yiri baar dheer diyaaradda ka duusho garbahaare way tagi kartaa doolon way tagi kartaa laakiin diyaaradda ka duusho dhoobley Kismaayo ma tagi karto waa inay xamar soo marto diyaaradda ka duusho afmadow waa inay Kismaayo tagi karna xamar soo marto ka bacdi Kismaayo aado cunfiga qawliga ah oo farmaajo marka ka hadlaa waa la dareemi karay wuxuu ku duulay Jubbaland si cad ugu duulay ciidamo geeyay dabaabadu geeyay oo Soomaalida kale u geeyeen باي بكل حاجنا هاي ديجانو قاضو ما قاضون جرو ديارده لو كير عنطدا أو سنكرت أنت كاميرا يسي بريس كنتو كاميرا على جرناي وح مدحوينها هراء وحرن Jubbaland كل إنه أرك حيتها هاي مدحوينها جو غير ومتلا أما غير كسر جدا يوجوجن ميد غير كيجان جينا يا أوكي وحكد على Puntland وأوجد مظاهرات دي أولين درات دستور كان وحا فدرالك ku qoran ku meel gaarka ah qolo walba maamul goboleed doorashada ha qabsato madaxweynaha hore wuxuu rabay in Jubbaland uu ugu dhigo madaxweyne nin daciif ah oo dadka uu ka soo jeedo matali karin marka Jubbaland iyo Puntland ani ma aaminsani in nidaamka Soomaaliyeed ay ka soo horjeedaan waa nimanka dhahayo musharaxiinta ha ka soo qayb galaan shirka وأنا ka dhahayo ka soo qayb galaan door shirka gudoomiyaha aqalka sare ka soo qayb galo okay ninka labada madaxweyne midna oo asaga ra'iisul wasaaraha ka dhiga asoo kafay ku cawaayo Mareykanka keenay oo Soomaali baray oo hor keenay ninka diidan inuu shirka ka soo qayb galo madaxweynaha xilka sida quruxsan ugu wareejiyo madaxtooyada sida quruxsan ugu wareejiyo ka soo jeedo Muqdisho ka soo jeeday asoo Muqdisho aan degnayn ku wareejiyo xilki ninka diidan inuu shirka ka soo qayb galaan ninka diidan gudoomiyaha aqalka sare oo reer matalo oo Somaliland dadka kuraas ku fadhiyo matalayo ninka diidan shirka ka soo qayb galo adeer ninkaas wax diidan Jubbaland iyo Puntland wax ma diidano wax muuqdana waay ma aha waxaan ka hadlaayo nin jeclaysiin in cabaysi ma aad oo maasantay dadaaladan socdo say kula muuqdaan marka midhal ma laga rajaynayaa oo ma ka soo bixi karaan qaabka wax socdo markaad qiimayso mise waa un dhuusama reeb 2 iyo 3 iyo wixii la mid Soomaalidu waxay dhahdaa dhagax taawasho iyo tuujis waa isku gubid madaxweynihii hore meeshaas wuxuu raali ka yahay meesha ma soo baxayo wuxuu asaga rabin ma ka soo baxayo waxaan aaminsanahay wuxuu asaga rabin haday ka soo baxaan ma isma sharaxi doono oo musharax ma noqon doono marka farmaajo dalkan meel adag uu sii marnaya in laga dulqaad badan yahay in laga maartay laga geeysan yahay in laga muwaadisan yahay in dimuqraadinimada laga yaqaano waxa ku cad shala markuu musharax ahaa asaga iyo team kale intay baxaan waxay tagayeen jirdiga daason ee mudaharaadayeen baawurka uu wato baawurka dawladda ahayd ciidanka waardiye ciidanka dawladda ahayd maanta madaxdii hore ragga waardiye mushaarka ka jirtay wuu weeraray wala dagaalamay diyaarado ay ku socdeen oo yiri meel kale ha ku dhacaan waa dareemi kartaa farmaajo dalka Allah ka badbaadiyo dalkan wuxuu u baahan yahay badbaadin way marka madaxdii hore laga hadlayo iyo Cabdi Xaashi iyo dabcan matalaad ay leeyihiin madaxdii hore waxaan ognahay labadii madaxweyne tusaale haddana maaragtay asxaabta mucaaradka kamida Muqdisho labadaba ka soo jeedaan deegaan ahaan marka la yiraahdo waxa Axmed iyo Dani u muuqda madaxdaas in xuquuqdoodii ama lagu ciyaarayo
ama matalaadii ay lahaayeen ay u baahnaayeen inay maaragtay qayb ka noqdaan dadaalada socda iyaga waxa u muuqda ee u muuqan la qoorqoor iyo cali guulaawe oo labaduba aan ognahay inay ku beel yihiin madaxweynayaasha hore maxay tahay هو ما صدق قرقر وحنا كسب حنا قرننا على جود لا وحنا كسب حنا قرننا سو كسب حي أيان قرننا وويل الماشي لجست وفرت الربا قرر الله آخرنا تاسع آخرنا هدي بالجيو أي شوغان وهذا أيوة ماشي شوغان محد دي إن أي أركتي ما أركتي صحة قاتان وكدوان مدة مدحوينها هذا حلقي سودا مال وما صنت وحي مسيين هذولين عصبي ما ماشي اللي قاعد marka kii ayga geeyay waa inay ku dagaalamaan rag ayaga ah marka waa niman meesha la geystay ognahay nin gudoomiye iska ah meesha shabeellada hoos gudoomiye ka ahaan jiray Cali Guudlaawe qorqorna nin wuxuu iska ahaa ganacsato asal ah silii sheegay ka bacdina dawladda Sheekh Shariif takadaha iyo takadii meelaha la geeyay marka wuxuu aaminsan yahay meeshaas Ilaahay ka sakow inuu farmaajo geystay kana wuxuu aaminsan inuu farmaajo geystay okay wiilku abtigu yahay oo ah lafta gareed asagana wuxuu aaminsan meesha inuu geystay oo rag musharaxiintu ay la hadda xiranbo rag musharaxiintu ahaa oo shalay nidaamkay ku imaadeen iyo wanaagay ku imaadeen iyo baasaboorada dulmaasiga la siinay iyo dawladaha loo diray cimrada aadayeen la ogaa ilaa hadda ay xiran yihiin maxkamadda lama saarin muxtaar row maxkamad lama saarin ma aragtay dadkiisa ma arkaan telefoon ma haysto واي شرعي نوعاس محوها لكن مختار waxa la yiri urur argaxiso ka tirsanaa isla markaasina iyada oo una qabaysanin buu maaragtay musharaxnimo iyo doorasho isu taagay arintaasi ma jirtaa waa ma santahay mukhtaar markuu iimaanay madaxweynaha farmaajo carrada hay oday ka ahaa nidaam sharci ku imaaday idaacaduhu ka hadlay miidiyo ka hadlay ayna markaa waan shaqeynay waan joogay si quruxsan oo Soomaalnimo ay ku dhahanto ku hadlay deeni soo carraayo nimanka ciirsanayeen uu ahaa waxa soo qalaafeen mabaadii ahayd markuu hadla fikirkiina inuu ka tanaasulo uu sheegay ka meeshu ka sheegay okay shalay haduu mabaadii wali ka tanaasulin maxaa sharciga baasaboorka duunaasi u siis maxaa safarada waalisi baas maxaa diyaaradaha loo saaray oo cumro iyo Djibouti intaas uu wareego maxaa sababay maxabiis waxa u dhawayso xir weys intii uusan musharax noqonin buu intaas horaas loo soo biyay waxa adeena ahayd marka saddexdan wiil oo meesha la kala geeyay ama saddexdan nin odayaasha meesha la kala geeyay oo ah qorqor Cali Guudlaawe in kala dhaho lafta gareen waa saddex nin oo Ilaahay ka sakow nimanka meesha ay geeyeen oo aaminsan hadda nimanka meesha ka baxaan oo imaado siyaasi kala meesha madaxweyne kala carrada imaado qabsado ama loo dhiibo ku doorashada ku guuleysto waxay aaminsan yihiin meesha ka baxayaan ana hadda maanta lacala ka soo qaad meesha aan tago waan ka saar lahaa nimanka noocaas ah marka nin walba uu garanay wax dilay malaga moogta jirida ku dilayso waa inaad garan kartid marka labada saddexna oday waa niman garanay jirida dilayso waa inay difaacaan marka farmaajo okay Axmed Idani farmaajo meesha ma keen farmaajo dad u abuurtay ma aha marka wixii dastuurka ku khilaafsan waa garanayaan wax Soomaalinimada ku khilaafsan ay garanayaan wayna ka hadlayaan waa niman xor ah inamana xor ahayn waka aad baa ma santahay maalmahan waxa soo baxayay guux la xiriira muddo kordhin la sameeyo baarlamaanku gaar ahaan gudoonka baarlamaanku ay arintaasi wadaan fadhiyadii ugu dambeeyay baarlamaanka waan ogeyn oo guux noocaas ah jiray xildhibaanna is hortaagay fadhigii hore ee maaragtay loo balansanaa kadibna fadhigii maaragtay maalintii arbacada ahayd la qabtay 15 xildhibaan oo magacyadooda la qoray waxa la yiri ma iman karaan mana inay iman waa laga celiyay su'aashan waa laba dhinacba inaad maaragtay uga jawaabtaan jeclay arinta xildhibaanada sida ay kula muuqdaan dastuuriyan iyo sida ay ku iman karto in 15 xildhibaan la yiraahdo ma iman kartaan fadhiga baarlamaanka oo gudoomiye xilkiisa dastuuriga ah oo dhamaaday isaga laftiisa uu yiraahdo ma iman kartaan oo go'aanka uu gaadho waa qodob balse kula muuqatay inaad noo sheegto takale tuhunkan baarlamaanka laga qabo iyo gudoonkiisa ee oranaya muddo kordhin baa jirta iyadana inta aad xog hayso maxaa ka jira ma santahay nuuro waxaan ku sheegayaa 15 xildhibaan si sharci loo marin dastuurna kuma qorno nin nacbaas yaa lagu qoray
hebel fikirkayga way khilaafeen meesha lagu qoray waxaan ku soo haray muddada la kordhinayo waxaa socdo program ninka la dhaho gudoomiyihii hore mursal doorasho hadday dhacdo lafta gareen oo meesha uu joogo inuu lafta gareen meeshaas xildhibaanihiisu ku dilaayo ninka la dhaho mursal xildhibaan uu noqonayn marka mursal waxaa u dan ah laba arrinba waa la sheegayaa oo xaqiiq ah mursal wuxuu wataa wiil inuu ka dhigo madaxweyne inuu ka dhigto oo koonfur galbeed u geysto oo farmaajo iyo tiimkiisa inay ka wada hadleen la sheegayo qodobo noocaas soo baxaya xog noocaas soo baxayso xog kale waxa soo baxayso hadduu lacala ninka muddada kordhisan waayo in uu ku soo laawareyn kursiga matalaada reerka hadda ugu fadhiyo kursiga uu ku fadhiyo inuu mursal soo galin marka mursal wuxuu ka shaqeynayaa 2 sano kale inuu meeshaas sii joogo oo lafta gareen waqtigiisa meesha ku dhamaado marka dadkana laga muwaayo dad dhisan oo maartay xildhibaano oo dalka iyo dadka u naxaayo oo hor istaagayo waana 15 dad ka badanbo oo baarlamaan kamid oo ku jiro oo hor istaagan way jirtaa barnaamijkaas waxaan rajeynayaa inuu fashilmay oo mursal naftigiisa barnaamijkaas inuu ka shaqeeyo inay ku adkaan doonto way markay sidaa tahay ma la oran karaa xurguftu waxay hadda u sibiyo shubanaysaa in mursal iyo lafta gareen ay challenge siyaasadeed ciyaaraan labada ruux oo jecel waxa la yiri hal saxan wax ku wada say ayaga isna ciid doono marka lafta gareen nin walba oo hadda adiga limirifa oo isleey alla ilaahay barnaamijkaaga bariim soo dharanayaan waa inuu ka hor istaago diyaar u yahay waana siyaasi dibcigiisa waay marka ma u maleynaa hadda mursal iyo lafta gareen waa isku tagtay karaan oo inuu lafta gareen baxo guriga mursal tago mursal uu soo baxo guriga lafta gareen imaado waa iska dhici kartaa laakiin waa iska shimbiro iska haysa laakiin waa biyo hoosta iska arkeen way muuqataa way haddii marka xaalku sidaa yahay arrimaha doorashooyinka dan waxay ku sii jiro maxaa kuu muuqda xaggee xaaladdan ku dambayn doontaa والله حالدان ما قرحسنو waan ku sii hormariyo waxaan ku dadka Allah badbaadiyo oo dad u soo kaco siyaasiyiin ah wax garad ah qoonyahana culimada diinka ururada bulshada waa inay ka wada hadlaan oo intay fadhiistaan dalkan meeshu ka yimid baa la garanayaa dadkaas haday fadhiistaan farmaajo uu ku qanci waayo ilaa isaga wali filladii fadhiye uu isagu ku qanci waayo habkee loola tacaamulaya ama dalkan loo badbaadiyo wallahi nooc walbo nooc uu asaga rabo waa loo macaamilayaa waxaan ku sheegayaa dalkan wuxuu ka yimid in dawladda shisheeye la isku soo dhaxdoorto bagaati wala dawladda walaalahanahay Djibouti gabagabadina 2012 waxa la keenay Muqdisho in doorashada ka dhacdo 2017 Muqdisho doorashada ka dhacday in dibna loo celiyo oo Kampala la geeyo oo Djibouti la geeyo Addis-Ababa la geeyo suurtagal ma noqonayso umad Soomaaliyeed barnaamijkaas diyaar uma aha waana rajeynaa dad aqoonyahana iyo siyaasiyiin iyo culimada iyo ururada bulshada iyo waxgaradka iyo dhalinyarada inta la isku imaado la dhaw maxaa noo dan ah dalka intuu ka yimid maanta intuu taagay maan dalka dib u yimid dalka dib u laabtay wuxuu dil ugu laabtay qabiilada la isku diray dagaalaha hadda maanta ogtahay mudug ka socdo ama maartay galmudug ka socdo shalay arkaysa shabaab inay meel ku leenayeen dadkii ciidamada dawladda lagu leenayay waxa la soo bandhigayaa in yaro shabaab la laayay wixii shabaabkay soo bandhigayeen oo beejadkooda ay soo dhigayeen lama sheegayo marka waxaan ilaa dalka Allah badbaadiyo ummadana Ilaahay waa u maqan laakiin waxaan rajeynayaa ummadda Soomaaliyeed inay tashato aad u mahadsantahay aan ka imaanay arrimaha doorashooyinka waxaan la socdaa hore waxaad u ahayd afayeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya muddo ka shaqeynaysa arintaas xilkii afayeenimo ma adiga ka tagay mise waa laga qaaday maana ka tagay maxaad uga tagtay waa maasantahay barnaamijka in la weydiiyo ma rabin maalin talaada waxa la dhiibay ninka la dhaho qalbi dhagax
qaraxii soobana wuxuu dhacay maalin sabti ah waxaan dhihi karaa horta imtixaamka qarax uu ku dhacay iyo barnaamijku qaraxa ku dhacay waa dulmi qof muwaadin ah Soomaali ah talaada la dhiibay qalbi dhagax khamiis iyo jimco sabtina waxa qaraxi soo baadhacay yaano marka go'aansaday inaan meeshaas kaga tago ayaa qaraxi soo boodara imtixaamka ahaa oo maartay halaaga ahaa ummadda Soomaaliyeed kooxdan burcadineedka si xun u laysay go'aan ka sii qaatay marka xilkana ka tagay qof iga qaadan ma jirto habeenkii aan kismaayo kad maalintan kismaayo ka tago meeshaas aan xilka idaacadintaas ugu yeeran waan ka tagay habeenkii muddo 20 jeer wasiirka amniga ducaalo ay soo wacay marka wax aniga iga imaaday ma aha wax ayda wasaaradda ka imaada ma ahayn marka ma wasiirka iyo qaabku shaqada u wado ayaad wax dhaliishay mise si guud xukuumadda u dhaliilsanayd iyo hay'adaha fulinta mise arrinta qalbi dhagax hadda aad ka dhawaajisay sabab la xiriidha ayay ahayd sababta ku kaliftay niyo maamaha iga maqan lii jiray jirkiisa hay jidinka ma qoslo ummadda Soomaalida waa qabiilkii wali laga ma tagin aniga qalbi dhagax ilmaadeerana nin in adeerkay meel lagu dhiibay inaa sii fadhiyo oo ka sii shaqeeyo qadiyada reer ahaan ay ugu weynay oo aan ku diiday in dadkayga maanta la dhiibo oo loo dhiibo dad cadow marka ahaa soo arkaynay in loo dhiibo waa waxa ka xumaayay halaagi dambe oo qarax Soobana marka dambe ku dhacay waan ka sii go'aan qaatay go'aankayga iyo tashiye badan aan suubiyo wali ehelkayga aan la tashtay go'aankayga ahayd inaan meesha kaga tago laakiin wasiir ducaale wax aniga asagoo wanaag ahayn oo naga dhaxeeyay ma jirin bal waalidan uu ahaa marka si wanaagsan aan ku wada shaqeynaynay wax dhib oo naga dhaxeeyay ducaale ma jiro way qalbi dhagax waxaan ognahay gaalkacya laga soo qabtay laba habeen saddex habeen ku xidhnaa kadibna xamar baa la keenay muddo haddana habeen ku sii xidhnaa adigu markaas afayeen baad ahayd wasaaradda amniga ama maaragtay markaas afayeenwa xog badan baad maaragtay la socotay oo nin hawlaha amnigana aad takhasus ugu labaad ahayd intaas uu qalbi dhagax gacanta dawladda Soomaaliya ku jiray ama gaalkacyo ha joogo ama xamar ha jooge adigu cid aad kala hadashay oo aad dadaal ka samaysay in arrintan la xalliyo oo Ethiopia oo dabcan cadawgii uu la dagaalamay hadaan loo gacan gelin ma samaysay adigu dadaalkaas anu waan suubiyay hadda hebel aan tagay inaan dhaho wax macna ma suubinayso laakiin barnaamijka loo haayo iyo barnaamijka hadda loo qabtay iyo ina ogaado وانا la ii sheegay nidaamyada meesha ka socdaan iyo xogta meesha ka socoto nin ogaa ahaa marka Ilaahayna uu ka soo furay asoo farmaajo oo meesha sii joogo oo maanta uu xorriyadiisa uu helay marka maantana sharaf leeyahay inta aad ka ogtahay ma Ethiopia dalbatay in qalbi dhagax loo soo qabto maadaama gudaha Soomaaliya ku sugan yahay mise dawladda Soomaaliya ayaa go'aansatay inay qabato Ethiopiana ay maaragtay u dhiibto ma santahay madaxweynihii hore dalka wuxuu ku soo galay Ethiopia nacba markii dambana muwaadin Soomaali ah ayuu dhiibay wuuna awoodi waay kuraajo oo dhowr waan qaldamayo ummadda Soomaaliyeed iyo Cabdikariin Cafsan ka dalbanaya marka ninka geesiga ahaa sida fiican u hadlayo waxa jira sheegay wuxuu ahaa taliyii hore Shambaloshe marka waa in lagu qanco in la wada ogaa dawladda Soomaaliya fikirka ka imaatay inay dhiibto ayadoo dalabku laakiin xaq Ethiopia iyo Soomaaliya go'aansatay inay dhiibto oo maartay karaamo ku raadsato maxay ku bedelatay marka wallahi ayaga la weydiina farmaajo la weydiina waka adu laakiin waxa inta dogtay aniga taas ayada waxaan leeyahay inay murtazaq dad daciifiin oo murtazaqiin ay noqdaan adeegayaal ay noqdaan oo Tigray wali farmaajo dadku wuxuu ku ceen jiray hebel Tigray la socda xukunka Tigray jooga marka haye oromar ma joogin nimanka la dhaho amxaarna ma joogin waxa gacanta ku hayay Tigray ahaayeen murtazaq waxay dawladdu waxay noqotay dad daciifiin oo murtazaqiin oo Tigray u shaqeeyo marka way marka waxa keenayso daciifnimada ku jirto ee shakhsiyad darrada ku jirto ee muwaadinimo inay muwaadiniin ahaayeen meesha ka cadeynayso qaraxii Soobe oo saas sheegtay 3 maalmood kadib dhibista
xogaha qaar waxay sheegayeen in intuuna qaraxaasi dhicin la ogaa in qarax noocaas uu ku soo wajahan yahay magaalada Muqdisho ku dhex jiro isla markaasina laga yaabo inuu ku qarxo meelo muhiim ah arintaasi ma jirtaa in hay'adiina arrimaha amniyaadku ay ogaayeen hawshaasi niyo ma santahay aniga xogtaas lama wadaagin laakiin way dhici kartaa oo qaraxyo kala ka dambeeyay oo dhacayn waa la ogaa oo waa la sheegay mana la qabanin marka ummadda Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Banaadir Ilaahay badbaadiyo khibradaada Axmed Carabow marka aad wax yar nooga sheegto waxaan la socdaa sooba kaliya ma intaas oo qarax waa dhacday habeen hore ugu dambeysay oo 5 dhalinyaro maaragtay maqaayad lagu qarxiyay maalin walba qarax baa dhacaya dad baa la laynaya sidoo kale weeraro toos ah qaraxyada qaar la socda waxaan ognahay hotel SYL oo madaxtooyada aan wax sidaas u badan ka fogeyn qiyaastan ka haysteen kasto aan arag aad ugu dhow qarax iyo weerar toos ah ka dhacay ana sahablood laba iyadana maaragtay aan idhaahdo iyadana waxba ka dhacay aan idhaahdo hotelka la yiraahdo Afrique afwan iyadana maalin dhaweed waa kay maaragtay general galaal iyo rag badan oo kale ama dad badan oo kale ay ku baxeen jidkan Maka al-Mukarrama iyadana marar kala duwan bay waxyaabo badan ka dhaceen oo jidka waliba lagu sheego inay tahay meesha kaliya ee dawladdu ay si rasmi ah ay u maamusho bal xageed duntu iska qaban laadahay in amni xumadii ay ugu badan tahay meelihii dawladdu maamuleysay intaas oo checkpoint ay ka soo gudbaan maaragtay dhibaatadii dadkii qaraxa waday waliba rag hubaysan ay soo gudbaan oo gudihii hore madaxtooyada agteeda ahayd maaragtay weeraro toos ka dhacaan ma habacsanaan dhinaca amniga ka jirta ma wax loo og yahay oo kas waxaan loo sameeyo dawladda lafteeda ay qayb ka tahayba bal dadka Soomaaliyeed ee maanta ku taawanaya khibradaada adigoo hay'adahana ka soo shaqeeyay marka aad wax yar nooga ifiso xagee walaalo duntu iska qaban laada waa ma santahay hay'adihii amniga oo la rabay inay xogta xuraanka cadawga ay raadiyaan siyaasadda ku mashquulsan hay'adaha amniga hadda ku mashquul lahayd shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed in amnigeeda sugto hay'adaha amniga iyadu la jeeda booliiska ka soc total hay'adaha amniga waxa loo garanay hadina doo hebel iyo taliye hebel ma aha laakiin hay'adaha amniga waa booliis nabad sugid iyo xogga dalka oo daafaha dalka ama deegaanada kale iyo gudaha Soomaaliya ee Muqdisho ay naftooda wasaaradda awood ku leh marka waxa miisanahay xogti la rabay cadawga laga raadiyo waxa laga raadiyaa siyaasiga waxa laga raadiyaa Facebook dadka laga aflagaadeeyo waxa laga raadiyaa deegaan in lagu duulo waxa laga raadiyaa in la aado baruufiye iyo dhashiikayaal iyo sakaawiye lagu qaado diyaarad oo deegaano kale la geeyo dawlad ka dhisan tahay oo 10 sano ama 12 sano ka hor xorowday maanta gadow deegaanada Jubbaland waa meelaha uu ka ugu xorowdo dib hadana loo xoreeyay oo maamulkii ama dawladdii Jubbaland gacanta ku haysa laga xoreeyay marka hay'adihii ku mashquuli lahaa amniga inay xogta dawladana asturaan xogta cadawgana ay raadiyaan waxay raadiyaan hebel caawa yoo la fadhiistay hebel caawa yoo la sheekaystay musharax hebel gurigiisa yaa galay ma taliye hebel aa galay ma kabtan hebel aa galay ma korneyl hebel aa galay hadduu maanta tusaalaan ka soo qaadayaa nin kabtan uu soo baxo oo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud gurigiisa u tago soo salaamo jagada laga qaadaa xidigaha laga laawanaa marka hay'adihii amniga oo la rabay inay asturaan xogta dawladda iyo amniga shacabkana ay sugaan iyo amnigii hay'adaha dawladda ay sugi lahaayeen ay waxay raadiyaan xog siyaasiga waxa keenaya marka xogti cadawga al-shabaab ahaa lama raadiyo waxa la raadiyaa qof shakhsiyan oo siyaasi ah in xumaan laga baaro ama wax la baaro wax la daba socdo laga soo dhaxilo waxaas ma dawladnimada kuma fiicno bal islaamnimada kuma fiicno yaa lagu haleeyay marka amniga caadiga ahaa ee waxa lagu haleeyay shacabkayga inay iska sugaan shacabka la ilaaliya aniga madina aan idinkiisa ilaaliya
madaxweynihii hore farmaajo intuu joogay waxa la Sheekh Maxamuud waqtigu joogay dadka la leenay sana leela villa Soomaaliya madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed markuu madaxweynaha ka ahaa markuu fadhiyay villa Soomaaliya جعل الشباب فدي انتو كساري وعليش بيها كساري وديغانه بدن اغلبيته كساري ودورشو فيلا وحو كدخسو بيي اسكول بوليسيه مقدشو دخديد اهيد مدحوينه حسن الشيخ محمود wuxuu qabtay maalintii dalka maalinta madaxweynuhu ku guuleysanaya annaga waxa marayna meel la dhaho midow habeenkii xasan sheekh maxamuud oo ka guuleysay sheekh shariif sheekh axmed ana midow aan fadhinay annaga ciidamo ah oo huwan ah oo duulaan ku ah kismaayo ina qabanna gacanteena ku dhigno ilaahayna oo mahad celina gacanteena ku dhignay xasan sheekh maxamuud marka dalka madaxweyne ka ah 90 dhowr degmo ayuu xasan sheekh maxamuud madaxweynaha noqday oo u xoreeyay madaxweynihii hore farmaajo dalka intuu qabtay muxuu xoreeyay gadu xoreeyay gadu wuxuu ka xoreeyay dawladda Jubbaland uu hogaaminay Axmedoobe meel kale uu xoreeyay kala sheeg gida shabaab ma haystay wallahi asaga fikirkiisa ninka khilaafsan inuu shabaab yahay kulay ay tahay saadareensana marka niyahow dadka waxa la rabaa qofka muxuu qabtay ma aha qofka inuu qabto inuu tay soo xirto suud soo xirto Soomaaliya dadka waxaas ma dalka wax qabasha loo baahan waxa loo baahan yahay inaad dul qaadan kartid ilaa marka meeshan iimaanaysay masaajidna ku jirto ma maanin in lagu caayo in lagu aflagaadeeyo in lagu duro in lagu barbagandeeyo in wax walba lagu soo biyo dulqaadkeeda waxa la rabaa adaa soo doonato xilka madaxweynimada u saray dalka ma garad xasheeg wax walba la dhahay dulqaad u lahaa Soomaalida marka waxaan tusayaa war xasan sheekh maxamuud wuxuu ka soo jeedaa hawiye farmaajana daarood ah marka adal dhila war ninkan adeerkiis baa hawiye oo hiraaw oo afgaal waaye oo wacisla ah waxaan ay ahaan lahayd maniin hatta xoolahan isma daaqaan deegaano oo isdaaqaayo oo inuu xoolaheega soo baxaan xashiq deegaankiisa tagaa inuu asaga soo baxo deegaankayga u imaanay ma dhacays laakiin nin Soomaaliyeed waay marka qofka xaqana de moogtahay qofka inaan run kar wuxuu yahay sheegtid waa fiican waay marka dulqaadka hadaa lahayn adkaysi lahayn diirkaaga diir adag u lahayn inay meeshaas imaatay ma ahayn marka waxa la rabaa qofkii la caayo madaxweynimo uu yahay in laga war deegaana lagu burburinayo inta soo milyan oo dollar hotelka hotelka sayidkana qaxootiya ku jirto madaxweynaha oo 5 laab u jiro gaaja ku jirto dadku baahan yihiin habeen walba dhalinyarada Soomaaliya la qarxiya madaxweynaha markuu campaign ku jiray wili baarlamaanka ka hor hadlaa wuxuu yiri guriga la dumiyo dhisayna guriga la dumiyo la dhis ninka qarax soo sheego 100 kun siinayna yiri 100 ruux qarax soo sheegtay ma lacag la siiyo amay marka Soomaalida waxaan rajeynaa mar dambe wadaniga ah iyo wax badan aan qabanayna iyo in lagu sirin ma garad marka dalkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala badbaadiyo way geesta kale mudane Arab dadka qaar waxay aaminsan yihiin in madaxweyne farmaajo uu kaga fiicnaa labadii madaxweyne ka horeeyayba dhinaca ciidamada iyo in uu tayeeyo ciidamo cusub uu dhisay dhaqankii ciidamada wax badan uu ka bedelay oo dhaqan wanaagsan uu sameeyay dhinacaas adiga ma ku muuqata maadaama amniga aad wax badan ka taqaano ciidamadana aad wax badan ka taqaanad kala socoto ku muuqata in madaxweyne farmaajo uu kaga horeeyo madaxdii ka horeysay dhinaca ciidamada inuu ciidamo Soomaaliyeed kuwii loo oran jiray libaxyada Afrika inuu dhis arintaasi ma ku muuqata adiga inuu ma sadahay inuu propagandada bulshada baraha bulshada waa iska intixaam 20 sano u dambeeyay madaxdii soo martay Cabdiqaasim Salaad Xasan madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Allahu naxariisto madaxweyne Sheekh Shariif madaxweyne Xasan ninka dhisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhisay Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxa madaxweynihii dawladda ku meel gaarka ahaa ninka hadda xilka ka dhamaaday farmaajo ra'iisul wasaaraha ka dhigay Soomaali baray
horta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhisay waa ka suurtagal asagoo ka rabo ciidanka meel walba ku duulaan in 25 bisha uu mushaarka bixiyo waa ka suurtagal asagoo jacayl iyo muxabbo u qabin oo ay tahay fikirka tigtaytirnimada ciidanka biri ama wax ku adeegsataa ciidan waa loogu horeeyay dhismihiisa hal wado oo hadda madaxweynaha xilkiisa dhamaaday uu suubiyay muqdisho wili gudaheeda ka suubiyay ma jirin hadda muddo 2 sano waxa laga wadaa afgooye iyo balcad ex control iyo balcad ex control afgooye ila afgooye hadda 2 sano la wadaa intaas oo qarax laga suubiyay intaas oo dhiba lagu suubiyay oo suubiyay marka waxa la rabaa qofka taariikh inuu dalka ka tago ciidana la suubiyay Turkiga la geeyay way biibayaan way duulaan hawada soo cunaan waxa soo iska propaganda waa aamisanahay arina ciidanka 25 bish in mushaar la siiyo waxaan la sii jecel yahay ma ahane in biri lagu weeraro ragii madaxdii hore Soomaaliya ahaa sida habeen hore lagu weeraray madaxweyne xasan sheekh maxamuud maxamed sheekh shariif sheekh axmed ninka hadda la dhaha farmaajo intuu meel istaagay dad ciidan ma dhisin ninka ciidamada isku hagaajiyay oo taad maartay daadada galiyay oo ciidanka si fiican isku hagaajiyay xasan cali khayr u ahaa asagoo calanka wata la yiri laaya xabadaha lagu rido xasan cali khayr ma garad marka asaga dib loogu weeraray وانا aaminsanahay ana xaqiiqatan markuu ciidanka xasan cali khayr u dhisay muu ku dhisi naftigiisa hagaajin inuu hagaajiyo muu isleeyahay insaan ay baasha noqon doontaa laakiin nin walba Soomaali siyaasi ah wax hagaajinayo biriha ku hagaajiyo dalka iyo dadka inay barnaamijkaas anfici doonaan ciidamadan faraha badan ee la soo tababaray ama xasan cali khayr isku dubarido ama farmaajo isku dubaridee ciidamo badan baa Turkiga tababaray saan filayo kuwa kale Eritrea la sheegay in maaragtay lagu soo tababaray inkastoo in la soo celiyay in kala wali aan aad loo hubin ciidamadan kala duwan ee gorgor iyo haramacad iyo magacyada kala duwan ee shabeelka wata maalin walba waxaan maqlaa hotel Maaiday weerareen iyo garoonkii bay la wareegayaan iyo Sadiq John baa dhinaca kala baxay iyo waxyaabo noocaas inta badan dhigaha shacabka soo dhaca ciidamadan iyo waliba gada laga dajiyo inta ugu badan aan filayaba in hadda waayadan dambe ee la geeyo maxaa diiday ciidamadan noocana in lagu weeraro deegaanada rasmiga ah ee shabaabku haystaan ee la og yahay haday noqon lahayd shabeelooyinka meelo kamida haday noqon lahayd jubbada maaragtay dhexe deegaanada shabaabku ay sida rasmiga uga taliyaan in lagu weeraro ciidamadan iyagoo waliba in AMISOM la soconin oo AMISOM lafteeda la tuso in ciidamada Soomaaliyeed ay iska celin karaan shabaabka taas maxaa hortaagan looma soo beenbo markay nimanka barnaamijka dhisayeenbo in dalka al-shabaab ay kaga ciidanka kaga xoreeyaan ma u soo beenin laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay dalka idinka horeysin siyaasi dalka uma haraayo kulligoodna 70 jiro 60 jiro waaye marka waarmeysii waxa ka haraan leeyahay ciidanka Soomaaliyeed dhalinyarada hadda ciidanka laga dhigay rag aqoon yahanno badan yihiin oo dugsiga qaarkood ka baxay qaar ka jaamacada ka baxay laakiin waxaan leeyahay mustaqbalkiina iyo dadkiina aan lagu dirin laga muraan cus jiral shacabka Soomaaliyeed ee dalka ah wadaniyatiin iyo inta ku duuliyo waxa wadani ku tahay in cadowga dalka isku qarxiyo isku laayo habeen walba qarax soobiyo intuu dhalinyaro Soomaaliyeed intuu asoo ku xiran suun soo dhax fadhiis ku qarxinay kaas raadiya kaas asaga raadiya madaxweynaha horena raadinina ra'iisul wasaaraha horena raadinina siyaasi musharaxna raadinina biri laga yaabo inuu xilka la wareego in biri marka darajada laga qaado qorigan laga tiiriyo waxaad ku fiican ma dakanana aan qabtid dakanada wax xun waa aqri adduunba ku xun marka hadii aqrina waxay leedahay qofkii dakanada ka gashay uu qabsanayo waa lagu weydiinay fulana geeyay ama meesha hebel soo diri dhahay aqri laga ma yeelaayo marka kitaabka gacanta midig laga siinaayo oo amalka asuubisay lagu dhiibayo hadii amal xun tahayna meel adaga gali hadii amal fiican tahayna janna gali marka adduun gudihiisana waa dakano oo qofka aad dishay walaalkiisa biri ku dili doono
waa iska fiirina waa mar walba asana fiirisay noqonay war hebel walaalkiis miyaa qofku amar ilmadeer ma yihiin dalkana qabiil wali mu ka baabeen waxaana keenayo shalay markuu Axmed Madow la socday ninka la dhaho Cabdirashiid Janan wuxuu ahaa dambiile qaran maanta markii laga dajiyay Muqdisho oo doorbin hadda uu degan yahayna waa wadani dalka u naxay dalka u naxariistay shacabka reegada u naxariistay ayuu ahaa ma garad ninka shalay dhahay madaxweyne Farmaajo wuxuu rabaa inuu isku diro ogaadeen in mareexaan amaanta muwaadin wadani Soomaaliyeed noqday shalay markuu Axmed la socdo wasiirka amniga uu ahaana wuxuu ahaa cadow oo dalka iyo dadka ku soo duulay camiilatu Kenyaan waa ama dadka reegadu baabiiyay oo rag iyo dumar intuu laayo isku xiray oo godga wada galiyay ninka shalay la dhahay maanta in maartaaye way arinta lafteedu say ku timid intaad xog hayso macnaha waxaan ka wadaa Cabdirashiid waan ogeyn heerka uu maaragtay Farmaajo ay kala taagnaayeen wasiirkii amniga Jubbaland ahaa la xiray maxkamad la saaray marar kala duwan soo baxsaday sida uu sheegay beled xaawo maaragtay dagaal ay ku dhaxmareen ciidamadii halkaas la keenay in mar kale uu Farmaajo gacanta u galo isla markaasina hadda xaaladdu sida ay tahay ay noqoto say ku timid intaad xog hayso niyo ma taarta Cabdirashiid inuu xirnaa ma aaminsani Cabdirashiid inuu dawladda federaal ku xirnaa ani ma aaminsani waxaa aaminsan dadka reer Jubbaland iyo shacabka iyo dawladda Jubbaland way aaminsanayeen saan rajeenayo أنا مقدسان جوج ما أنا أمسنا عبدالرشيد هلا مرة إنه حرنا عبدالرشيد لو قدوم كهلا وحياة هاد إلى بركة كصباح ما يجرن واين مرنا وحولي دونا كصباح صدق مركة عبدالرشيد أنا حرنا ما أمسني عبدالرشيد وحنا أمسنا إن الله صادر رجل جبلان كو عبدالرشيد دار رشيد أحمد مدوي كسماي كده عيسى العوقات يصير أي شيء جايام نودي ولا شيء lacag u qaatay waxa la yiri ugu yaraan odayaasha gada ka iimaanayo oo digil mirifka ah ilaa moogta gado waa deegaan la wada degan yahay oo digil mirif degan yahay waxa degan niman la dhaho dir wala wada degan gada meel wada degan yahay odayaasha deegaankaas ka iimaanayo oo soo xulaya baarlamaanka xani baa la yiri hatta ugu yaraan wax qabanaynin inuu shaqeynay Cabdirashiid oo nabadan la shaqeynay waxa ku cad ninka gudoomiye ku-xigeenka doorashada ahaa haweenkii xildhibaanada lagu dhawaaqay telefoonku dansaday magaalada galkismaayo marka Cabdirashiid dadka reer Jubbaland waxay iska jilbaysan mar walba way jilbaysan yihiin Cabdirashiid wuxuu ahaa nin mar walba shaqeynaayo Farmaajo iyo tiimka la shaqeynayo wala agency ah waxa ninka siyaasiga ah waxa la rabaa biri wax ku soo xiraayo jiro hadalku soo xiraayo Cabdirashiid aniga aqoon badan uma lahayn laakiin familku asay ka soo jeedo dad kamid ah Muqdisho maraan ku sheekaysanay iga sheekay gada wuxuu ka soo biyay wala jifadu ka dhashay Reey Axmed kala dhah iga sheekays nin oday ah oo nabadoon ah wuxuu yiri naago iyo rag intuu laayo isku god la wada galiyay maalintaas ugu duday dhiiga bil aadamku waa xadag waaye wax mudan waaye in la ilaaliyo ilaahay dambiidu oo toobada lahayn waxa laba shay inuu qofka ashirku billaah galo iyo qatliga marka qof shacaba oo raayadaada ku hoos nool oo maamulkaaga ku hoos nool oo aad maamulaysid oo maxkamad aasaar ina baqayri sharci inta leeysid god awada galisid wax ku fiican ma odaga markuu iga sheegan Cabdirashiid ka duday way marka Cabdirashiid waxa aaminsanahay Jubbaland asaga wax uma heyn asaga heysay Soomaalidu xukuumada qaraara ugu madhatiyo Cabdirashiid luqad aan la yaabay oo daraad ku hadlay wuxuu yiri Jubbaland la wada leeyahay ayaan raadinayaa waxaan ku jir waxay ahayd Jubbaland la kala leeyahay war 6 sano ina wasiir sheeganaysa Jubbaland la wada leeyahay hadaa aragtay la kala leeyahay hadaa aragtay ma ka soo tagtay ko maxaa wasiir u noqotay wasiir amni ugu noqotay
wiilka ayaan la maalnaa wariyaha ah oo la baxay ha noolaato waa ninkii dhahayay madaxweyne farmaajo wuxuu rabaa ogaadeen in Mareexaan inuu isku diro waraysi ka qaada ayaan le wuxuu shalayna ku hadlay wuxuu siyaasaddan dib ugu soo laabanaynin أنا أن لا يوقعها مقاحي عيش إنه أنا سودبي مقاحي يا إيش النت أفسر هذا مركز رجاس دقفك سياسة دم بينه رجال هين ياكو آمنة يا بري سياسة دم بكو آمنة سويا لا وأنك إيش لو دعينا سعيدني ولكن سعيدني غير الله سيو حويري باش عالم كأن الله سو كل ما باش عالم كقوان سكر الله كل ما كقوان رواي بقرت وحرجينا يا عبد الرشيد وحو تيجي جرتي فين دماده reer Jubbaland wuxuu ma heenin hal maalin amniga Jubbaland muu sugin meel uu ka sugo ma jirto hal maalin dagaal ma galin nin wuxuu ahaa fiiri Cabdi Rashiid daawad meesha la dhaho aan waliga gadama tagnaa meel daawad la dhahay sheegay oo meeshii ahayd luuq iyo doolo iyo balad xaawo canshuurta saaka qaaday bal waxa ogahay Jubbaland lacagta ugu badan Salasiinay Jubbaland lacagta ugu badan asay ku bixis هنقط هدو داوعمه هنقط والي سوسي دانا العقل هلي صادره هنقط قبل قدان دفاعي هنقط لعقته بان سيكون بحيس عشورته كقاعدو قبل قدنا ماليد جبل ما يكون دعين انا اوغ عبد الرشيد اسغا هرتو لهاي اسغا wax ma heenin wax hadda loo dhutinaayana Jubbaland ay tawi doontana dada waxay ku leeyihiin warniyo soo aragtay Cabdi Rashiid Saameyn Muule Cabdi Rashiid Saameyn ma lahayn عبد الرشيد قوسكو كذا شيء مريحان كصوت غير أحمد وجفديس بس كوتي جفاه سو كوتي بتكون قرينا ديغان وانا واي محو كسو كردينا يا marka farmaajiyo ما garan kari wuxuu ku soo kordhinayaa 10ka tiknikada iyo 100 wiil inuu ku wareejiyo bis waxa uu ku soo kordhinaya Cabdi Rashiid aqli aqoon iyo maskax iyo siyaasad iyo qidad amni uu ku soo kordhinaya Cabdi Rashiid ma jirto marka dadka aaminsan Jubbaland inay u dhuntanayso Cabdi Rashiid uma dhuntanayso Jubbaland Cabdi way macquul ma tahay marka farmaajo inuu dib ugu soo adeegsado Jubbaland isla markaasina gado uu gacanta u galiyo kuna amro in Kismaayo dagaal ku qaado Cabdi Rashiid ninka adoo bariira la Kismaayo 10 lagu siiyay wax uu ka sheegayo Kismaayo iyo nidaamkeeda ma jirto hadda Cabdi Rashiid Kismaayo soo aadana qabiil ay noqonay shalay ninka Axmed oo la socdo wasiirka uu ahaayo la dhahayo dambiil uu ahaayo waxa raasanayo caalamka hadda maanta inta soo baxo oo dhaho gadaan kugu wareejiye baxe Kismaayaad Kismaayo raga joogo gabdho ma joogo cilaan u saaran marka 10 bar lagu siiyay rag ku sii wataagan yihiin laakiin waxaan leeyahay dalka qabiil loo celin dalkan yaa qabiil loo celin maanta xoolaha gada ka soo baxay waxay cabayaan ceelka afmadu ku yaalo dad wada dhashay oo deegaana aan suuri doonin wili abti ah waa dalkan waxaan leeyahay madaxweynaha farmaajo iyo waxa la fikirka ah war maanta qabiilka ka celin dalka qabiil yaa loo celin Jubbaland madaxweyne ku xigeen waxa uu amar Reexaan ka ah sheeqaala ka ah gudoomiye baarlamaan raxweyne ka ah ku xigeen gaal jacayl majarteena ka ah dalkan dad la wada degan yahay waa jareerna way degan tahay oo wasiirre ka tahay xildhibaanay ka yihiin deegaanka la wada degan waa hagaag aad baa u mahadsan tahay Axmed Carab waa ku mahad celinaya waayahay dib baan Muqdisho wax kugu celinaya gabagaba ayaan ku dhownahay aad waxa loo sheegaa taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waan filayaa aqoon waa u leedahay ma aqoon u leeyahay waayahay aniga aqoon u leeyahay waayahay waa mahadsan tahay waxa la sheegaa waa taliyaha nabad sugidda sida hadda loo ogyahay waxaana dhinaca kale la sheegaa inuu yahay ninka siyaasadda Jaangooya filla Soomaaliya ama siyaasadda madaxweyne Farmaajo Jaangooya taliyaha nabad sugid iyo siyaasadda filla Soomaaliya xaqiis ka soo galaya wallahi ninka odaga hadda ay weydiisay waa in dawladda iskala si la sheego laakiin ninka aqoon aan leeyahay ma jirto CV fiican kama hay laakiin Soomaali magaciisa haysa marka adiga inta afayeenka wasaaradda amniga ay ma saarteen marka
ani ninkaas cilaaqaad ma lahayn ninkaas yani cilaaqaad meel aan ku yeelanay ma jirto marka waa uu wariye ahaa oo jaziira waa arki jiray laakiin ninkaas ma aniga ninkaas may way madaxweynaha ma la taliyo yahay marka aqoon niyo kama warhayo barnaamijkaas waa maasan tahay gabagabadii ayaan joognaa waxaan ogahay in marar kala duwan airportka magaalada Muqdisho adiga oo ka dhoofaya qashqashaad lagu sameeyay waxaan ogahay mararka qaar in baasaboorka laga wareegay arrimahaasi say ku yimideen maxaa gaar kugu ahaa oo mararka kala duwan hadaan khaldanayn tiraba ka laba jeer baa ogahay in maaragtay qashqashaadaas kugu dhacday see wax u dhaceen walaalo ma san tahay fikirka al-shabaab wuxuu yadaa fikirkeena qaadan weysid murtadaata nimanka xilka wada dhamaada nabadii nolol fikirka al-shabaab qaybeeg iska matalaan oo fikirkeeda raaci weysid waa ridowday waa rid siyaasi ah marka waqtigii aniga baasaboorka mar laga qaatay marna macal maxamed tacsidiisa aan soo socday meedkaan isla socday waxa iska ahayd arrin qabiil dadkaan wax qariyamihi maxaa axmedo ogaadeen kala dhaliyo marka axmedo ogaadeenada asagana ma dooran ma dooran ilaahay noo dooray marka waan ku qanacsanahay inaan isku reer ahaano barnaamijyo noocaas ay ugu haysteen Jubaland maxaa u burburin weys qayb dadka burburinaya maxaa qayb ugu noqon weys meesha aan dhisay oo aan soo halgamay oo cadawga al-shabaab 9 bilood ii haysteen oo ii xireen oo ii dilaayeen waxay ahayd deegaanadaas inaan gacanta ku hayno maanta meesha ciziga sharafta ku leeyahayna meesha say ahayd inaan burburiyo dib u laabto macquul ma marka dadku waxa ka tirsan karaan oo aniga waxa ka tirsan karaa laakiin wixii aan soo dhintay dadkii ehelkayga ah qabriga maanta ku jiro duugan inaan qiyaano oo way cidii marka kugu sameysay arintaasi ma shaqaalaha garoonka ahaayeen ma wasiirka dawlistu ahaa mise amar fil Soomaaliya ka soo baxay wallahi niyo waa fikir wada qabay ahayd waxaan ka ahayn ra'iisul wasaarihi hore markaas meesha joogay Xasan Cali Kheyre laakiin tiimka kale hadda marka nabad inoo la isku sheego waa ka mideysnaayeen marka waxaad ugu mahad celinayaa mar labaad iyo saddexaad duugti macalinka aan ka qayb galayay waxaan ka qayb qaatay xogaayihii xafiiska ra'iisul wasaaraha uleex in dhahan ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo inaan meeshaas ka baxo oo duugta ka qayb qaato ka shaqeeyay aan ugu mahad celinayaa kumaankum jeer marka duugta ka qayb galaan soo laabtay ayagu waxay isleeyeen uu carari doona oo Kismaayo ku soo carari doona kan soo laabtay Muqdisho marka waxaan ku sheegay waxa la isku haystay waxay ahayd qabiil ahaan way xilligan kale baasaboorka laga qaadanayay wallahi wixii waa jirtay qabiilka jiray oo dadkii baasaboorada familka oo hadda madaxweyne Axmedow ka soo jeedo dagaal lagu jiray oo aniga asaga isku familka nahay dagaal lagu jiray dagaalkuna kamid ah baasaboorka in laga qaato okay baasaboorka waa laga qaatay meeqa ayuu ka maqnaa muddo 6 bilood iga maqnaa baasaboorka dib lagu soo celiyay xildhibaanada aniga matasho Saarashi Xuseen iyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ninka la dhaho Cabduuli Muudi ayaa ii soo celiyeen oo mahad celinaya labada shakhsi waxaana waqtiga waxa isku soo aaday warqadii wiiftada ahayd oo beenta ahayd oo ay dhaheen waxaan u aqoonsanay Axmedow inuu labada sano yahay maalintii warqadda soo bixiyay maalintii baasaboorka la keen way xilliga baasaboorka laga qaadayay cidii ka qaaday exactly wax idin dhex maray oo aad noo sheegi kartaa ma jiraan wallahi heedaha amiga aad iyo aad baa u mahadsan tahay kelmadda ugu dambaysan ku siinayaa Sayid Axmed Carab maxaad oran lahayd kelmaddaada ugu dambaysa waxaan dhihi lahaa dalka iyo dadka waa loo turo siyaasiyiinta Soomaaliyeed wali gaar ahaan dadka ka soo jeeda reer Muqdisho oo yaa korkiina lagu kortuman dalka iyo dadka idinkaas kale gaar ahaan caasimadda la isku haysto idinka degan Kismaayo la isku haysto Garowe la isku haysto Beedhabo la isku haysto waxa la isku haysto waa meesha la dhaho Muqdisho maalin walba meesha wuxuu ka dhax halaagan waa Muqdisho maalin walba dhalinyaradiina aqoonta soo yeelata soo dhisteen meesha lagu laayo oo kooxda burcadiineedka ay ku laayaana waa Muqdisho dalka iyo dadka u tura dawladda aan leedihiina dhista siyaasiyiintiina oo aragtida oo dalka in loo nuxarabtana ka dambeeya wabillahi tawfiiq
aad iyo aad baad mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa sayid axmed carab oo dabcan afayeenkii hore ee wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya isla markaasina xilkaasi markii dambe isagu sida uu sheegay iskii uga tagay iskana casilay xilkii uu hayay wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waa uga mahad celinaya waxa kula kulanay magaalada Nairobi waraysiga waxa idin la socodsiinayay anigoo Nuur Maxamed Cabdi dhanka kaamaradaha waa Hadraawiyara iyo sidoo kale ilka case waa u mahad celinaya iyagana mudane aad baan kugu mahad celinaya intaas ayaan waraysiga guud ahaantiiba ku soo gabagabeynayna tan iyo kulan dambe waxaanu idin leenahay dhamaantayo isku duuban sidaas iyo nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh